inuu kaftamay mahad dhaatayna markaa anoo aan dhaadanaya marka qadan ka baxday saa u istaagto daariya hoogay baa ku yaal marka waa la wada leeyahay magaalada lama kala laha waa la wada leeyahay xaqeediina innagaa raadinayna maadaama inagu soo doortay maantana waxay noqonaysaa in xaqeediina raadino biidn illaahi tacaala marka intaa laga yimaado waxaan jecelahay inaan runtii u mahadnaqo guddoomiyaha gobolka banaadir ee sida sharafta leh nagu yani xusay in dadkii ka soo baxay ama midhihii ka soo baxay doorashooyinkii 2016 ay maanta uu ku marti qaado oo loo kala hadhin hadday tahay odayaasha xildhibaanadii guddidii doorashooyinka gobolka Somaliland iyo maxaa la yidhaahdaa dhammaan yani howlwadanadii kale ka shaqeynayay intaba ay mutasharrif aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa guddoomiye marka laga yimaado taas waxaan runtii aan jecelahay inaan laba qodob taabto mid weeyaane sida laga dhawaajiyey odayaasheen khayr badan allaha siiyo runtii door aad iyo aad u adag ayay ka soo baxeen marar badan waxaa jirtay in muran badan ka yimid oo ahayd halkee lagu qaban doono waxaan ku adkaysanay iyaga iyana runtii ay hormuud ka yihiin in muqdisho lagu qabto ina balkan wax ku darsan Soomaaliya markii wax lagu darsanayay xamar bay haddaynu ku darsanay xamarna in xamar lagu qabto doorashadeena ay noqoto marka saasaan u aqbalay in gogosha la dhigo maxaa la yidhaahdaa doorashada halka la dhigo taa marka laga yimaado waxaan jeclahay iyadana sidoo kale inaan u mahadnaqo guddiyadii hamaha noqdaan fiid hamaha noqdaan sii maxaan ugu mahadnaqaya weliba gaar ahaan guddiga heer gobol ee Soomaaliya wax badan laga sheegay laakiin dhalinyaro yar oo runtii mas'uuliyad weyn qaaday bay hayaan saddex arrimoodba way isu galeen kow meelaha kale iyadoo 3 bilood ay qaadanayso in la soo diyaariyo iyaga waxay ahayd inay bil gudaheed ku soo diyaariyaan inay kow ay diyaariyaan meeshii lagu qabanayay inay diyaariyaan maxaa la yidhaahdaa candidateska iyo dadka musharaxiinta inay diyaariyaan sidoo kale ergooyinka iyo wixii 3-4 shay shaqo oo kala jaar ay mar kaliya wada qabanayaan run ahaantii dhib kastoo inaga soo gaadhay waxaan jecelahay inaan u mahadnaqno inay doorkaa ay qaateen aan runtii adkaa inaynu u mahadnaqno ayaa waajib inagu ah marka iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr arrinka labaad ay qabteen waxay ahayd markii la isweydiiyey la yidhaha halkee lagu qabanayo dad badan ay lahaayeen ha lagu qabto xalane ha lagu qabto maxaa la yidhahdaa gaadiidka iyaga iyo fiid iyo guddiga amnigu waxay go-aan ku gaareen oo run ahaantii go-aankaasna aan odhan karayno inuu ahaa yani ay ku dhiiradaan guddoomiyaha kooshin iyo guddigii oo dhanba ay ku dhiiradaan runtii waxay ahayd wax weyn oo aan ugu mahadnaqayno in gaadiidka lagu qabto meel Soomaaliyeed lagu qabto amni Soomaaliyeed hayaan oo runtii aynu innaguna maanta aan odhan karayno waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ina waafajiyey inaynaan marti ku noqon meel ajnabi uu runtii hayo gacanteeda ku hayo oo Soomaali dhexdeeda ku soo sida gobollada kaleba loogu soo doortay Soomaali dhexdeed ayaa innagana inoogu soo doortay Soomaali dhexdeed marka taasaa sharaf weyn inoo ah waan rabnaa inaan uga mahad celino go'aamada caynkaas ay qaateen doorashadan lafteeda xukuumadda inaan uga mahad celino weeyaan oo haddii aanay samayn ama aanay qaadan iyo baarlamaankii 9aad labadaba oo haddii aan lagu dhiiran in lala yimaado nidaam ka duwan kii hore markii la waayey qof hal cod iyo hal qof la waayey waxay noqotay in markaa laga wareego la yidhaahdo sideen wax uga qabanaa oo sidee doorashada u iman karaysaa marka runtii ku dhiiranaantaas lagu dhiiraday lafteeda ayaa wax weyn ahayd marka iyadana waxa weeye waxyaalaha lagu xasuusan doono baarlamaankii 9aad maxaa la yidhahdaa xukuumaddii iyo madasha intaba 3dooda lagu xasuusan doono in go'aamadii mar walba loo baahnaa ee munaasib ku ahaa waqtiyada kala duwan inay markaa ay qaateen iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayra intaa marka laga yimaado waxaan jeclahay inaan si gaara aan ugu mahadnaqo amniga guud ahaan
sharaf bay naga mudan yihiin ciidankeena ama booliska ha noqdaan ama niisa ama ha noqdaan ciidamada qalabka sida intaba waxay sharaf bay naga mudan yihiin oo haddaan maanta magaalada xamar aynu joognaa haddii aanay jirin maxaa la yidhaahdaa aanay iyagu hawl badan ka qaban waa la dhaliilaa wax badan baa la sheegaa laakiin run ahaantii markaad eegto waxaan ku degannahay ku joognaa waa maxay waa ciidamada ayaan ku degannahay ilaahay subxaana wa tacaala iyagana jazaagooga allaha siiyo hawsha halkaa ka sii wadaan leenahay dhibaato badan bay la kulmaan cidda dhimanaysaa waa iyaga cidda dhaawacmaysaa waa iyaga cidda wax ilaalinaysaa waa iyaga wax weeyaan runtii yani anu waxaan jeclahay halkan tacsiib uga diro ciidanka iyaga ciidankii ra-iisul wasaaraha waxaa taliyihiisiiba maalintii dhaweed ahaa qoladii ku dhimatay qaraxii dayax sidoo kale malaaqyadii waana maalin walbana qof haliyey iyo qof aynu u baahan nahay oo Soomaaliyeed baa ku dhintay marka inaynu runtii usoo wada jeedsano sidii aan wax uga qaban lahayn amniga waa mid muhiim ah iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waa idin ogsoonahay waana ku mahadsantihiin ugu dambeyntii runtii gudoomiyaha xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa taabtay waxa way abaaraha yani in waxay malaha fiicneed intaan imanka raashinkii baa lasoo dhigay malaha inaan hadda kasii hadalo idinkoo malaha cunayna ku wanaagsanay laakiin haddaan kasii hadlaya waxaa la rabaa inaynu xasuusnaano walaalehen dad badan oo inaga mid ah ayaa gaajoonaya marka inaan xasuusnaano mar walba dhammaantiin aynu u guntano wallahi alcadiim reportska haddaad aragtaan qalbigaaga xanuunay sawirada haddaad aragtaan qalbigaaga xanuunay afar toddobaatankii markii 540,000 oo dad laga soo daadguriyay waqooyiga la keenay koonfur waxay ahayd badbaadin maanta meel lagu badbaadayaa ma jirto dadkii gebigiisii maxaa la waxa abaartu way safmar bay noqotay dhinac walba ilaa kilkii shanaad ilaa maxaa la yidhaahdaa waqooyi bariya kenya intaba meel abaarey meel Soomaali degto waxa weeyaan waa abaartaas ah webiga iyo dhuumiyaashii way gureen baadkii xoolo cunayeen waa la waayay meel kastoo ay tagno dadkii waxay ka soo qaxayaan miyigii bay ka soo qaxayaan waxay soo qaxayaan magaalooyinkii xoolihii haddaad sawirada qaarkood aragtaan xoolihii saasay ay wadooyinka u waran yihiin iyagoo meyda meel kasta min ka soo bilow waqooyi ilaa iyo koonfur markaa waxaan u baahannahay yani inaynu runtii u gurmano oo u guntano sidaynu ugu qaban lahay taasaan isku boorinaya aan xasuusnaano mar kastoo ay cunto laynoo keeno inaan xasuusnaano in qofkii naga mid u gaajoonayo taasaan rabnaa ilaahay dankii inaan ku shaqeyno marka anoo yani idin xasuusinaya waxaan idin xasuusinayaa wax kale maaha inaan is xasuusinaa waa doow waa waajib islaamiya ina saaran inaan taa xasuusnaano oon ku shaqeyno biidn illahi tacaala runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta caawa markii aan soo galay halkan waxay soo xasuusisay xamartii la yaqaan geedii waaweynaa bardaha iyo geed hindigii meel qabow oo habeenkii leen wanaagsan leh oo xamartii la yaqaaneen ilaahay ha inoogu wadastaan oo biidn illahi tacaala inaynu meel kastaba saar ay noqon karto oo nabaddu ay meel walba u gaari karto aan ilaahay ka baryaynaa laakiin innagoo ilaahay baryayna shaqo badan baa lanaga doonayaa inaan markaa shaqadaa qabanno ayaa muhiima ilaahay dankii kuwii shaqadaa qabta ee amniga xusuusta ee amniga adkeeya ee weliba maxaa la yidhaahdaa dadkeena noo gurmada allah inaga dhigo wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu